waxa ay u dagaalamayaan baabi'inta dadka iyo dalka, waxa ay u isticmaalayaan hubka iyo gaadiidka dhallinyarada reer miyiga ah iyo kuwa ay wiiqeen duruufaha nolosha, iyaga oo ku galaafanaya haldoorka indhaha Soomaalida waxgaradkeenna. Waxa ay u dagaalamayaan suulinta isirka Soomaaliga ah. Waa hubaal inaysan aqoonsaneen dad iyo dal Soomaali la yiraahdo. Fulinta hawshaasi oo dhan waxa ay marti uga yihiin ajnabi aan dalka u dhalan, argagixiso. inta la wariyay dagaalka hore ma jirin urur argagixiso ay Soomaaliya lahayd, waxaase ifafaalaha is-urursigooda uu soo bilowday bilowgii 2005. waxaa jiray ururo u heeb sheegto inay islaamiyiin ahaayeen, kuwaasi oo aan la xifaaltamaynin dowladihii jiray awoodooda oo yar darteed. waxaase ay ku dadaali jireen beddelka fikirka iyo in ay ku saameeyaan dadka iyagoo isticmaalaya habka diinta sida dacwadda iyo waxyaabaha kale ee dadka lagu soo jiito jiliinka ficilada akhlaaq wanaagga ay kulansadeen sida dhoola caddeynta, sadaqada iyo dabaridda qofka duruufihiisa gaarka ah. waxa ayse ururadaasi dhaleen argagixisada maanta sida la rumaysan yahay. argagixisada maanta inay isticmaalaan kuwa duruufta dariska la ah waxaa u sii dheer in natiijada ficiladooda xun ay ku duldhacayso inta ugu nugul dadkeenna, weliba kuwooda ugu taagta daran sida haweenka ku ganacsada hareeraha laamiga, carruurta baalashlayaasha ay u qarabtay waalidkood. waxaase ka dhasha dhammaan dhaqdhaqaaqadaasi guraacan saameyn dadka ku harta quluubtooda iyo qalfooftooda. sida culummada ay noo sheegeen kuwii diinlaawayaasha ahaa ee qaraxan geystay, iyagu isma qarxiyaan oo waxay soo diraan carruur masaakiimiina. carruurtooda ma qarxiyaan oo carruurtooda waxay u dirsadaan iskuullo. waxay qarxiyaan carruur islaameed oo ay dhaleen shacab Soomaaliyeed, iyagoo ah dad ku shaqaysanaya inay ummad Soomaaliyeed u baabi'iyaan shaqay u soo dhiibteen kuwa ajnabi ah. marka diin kama shaqeeyaane waxay ka shaqeeyaan dullinnimo. dullinnimadaasna shacabka Soomaaliyeed way fahmeen, meel baana looga soo wada jeestay. qaraxaas markii ay geysteen waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna. waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan. waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan. waxay aaminsanaayeen inay demin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay. waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn. waxay aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed in niyaddooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan. waxaa Ilaahay noogu beddelay midnimo. waxaa Ilaahay noogu beddelay horumar. waxaa Ilaahay noogu beddelay deeqsinimo. waxaa Ilaahay noogu beddelay gacan furnaan. waxaa Ilaahay noogu beddelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaanno. waxaa Ilaahay noogu beddelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. waxa ay xaalufiyeen dhirta, waxa ay qaateen xoolihii reer guuraaga, waxaa looga qaadaa magaca Islaamka zako. mase ahan bishii zake aan naqiinay. waxaa lagu qasbaa inay bixiyaan tabarrucaad iyagoo la isku raacinayo qoys iyo tuulo. cid kastaahi oo diiddana waxaa loo aqoonsadaa nolosha dil. waxa ay dhalisay taasi in xitaa carruurtooda looga qaato sidii xoolaha baadda oo ay ula baxeen zako, taasi oo keentay in lagu sameeyo maskax dhaqis, natiijana u noqoto inuu isdilo isaga oo salfanaya in kale oo aan waxba galabsan Soomaali. waxa ay sidoo kale u isticmaalaan handadaad inta ladan ee ka fog goobta maamulkooda si ay uga qaataan baad burcadnimo. waxa ay aaminsan yihiin mabda' marin habaamin ah iyagoo ugu soo gambanaya diinta Islaamka, taasi oo ay xasuuq iyo xoolatir kaga dhigaan shacabkeenna. mudanayaal iyo marwooyin, inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna, haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khalday. sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan
cafis u fidinno cid kasta oo issoo dhibtana kana toobad keenta falalkaas foosha xun ee argagixisnimada ahaa waxaan dadka issoo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa issoo dhiibay oo gacanta dawladda soo galay waxaana dawladdu Soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhaweynayso ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ururada argagixisada ayaa ka siman adeegsiga awoodda dhalinyarada iyagoo u isticmaala hagardaamada shacabka waa awood looga faa'iideysta si taban balse waxaa jira dhalinyaro ka soo noqday qallooca kooxdan sidoo kalena ku dhiiraday inay ka waaniyaan kuwa ku maqan mugdiga aan rajada adduuniya mid aakhira lahayn waxaan fariin u dirayaa wax meeshan jooga dhalinyaro ah inay soo biiraan unka dawladda Soomaaliya aan ku soo biirnay walaaleen kuwa inaga dambeeyaan inay soo xariirino meel kasta joogan oo al-shabaab ku jiraan dhibaatadaas inay ku soo baxaan muhiim inay ku laabtaan marrabna wax dhibaa meeshaas lagu hayo ilaahay wax dhibaato meeshaas jirto ilaahay dawlad baan soo dejiyay wadankeen aan horeysano wadankeen dhibaa ku hayaan dhibkaas inay ku qaadnaayeen culummada ku dhiiratay in ay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ficilada noocaan ah ayaa qaba inaan looga faa'iideysan duruufaha dhalinyarada balse beddelkeed ay u baahan yihiin taakulooyin aqooneed iyo mid shaqo abuur ah inaad ogaataan dhibka aad geysanaysaan inuu dalka ku sii nagaynayo oo ku sii daahinayo dhibaatada uu ku jiro fikirkiina inuu horseedayo dalka inuu sii nuglaado oo gacmo shisheeye ay maamulaan iyo inaad u baahataan waxaydan u baahnayn iyo inaad noocyeysaan dilka iyo cabsigelinta iyo dhibaataynta ummadda taasoo aydan u baahanaynin haddii aad ka soo laabataan khaladka sida ay muujinayso xogta iyo filimada kooxda waxa ay badi u isticmaalaan isqarxinta dhalinyarada ka hooseysa da'da 18 jirka ah waxaa la arkay qiyaas 12 jir nolosha isdhaafiyey iyaga oo diin looga dhigay daawashada muuqaalo laga soo minguuriyey wadamada ay argagixisadu dilootay anoo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed horena uga mid ahaa jir ururka al-shabaab waxa igu dhiirigeliyay sheekh aanu arkay markaas nin sheekh cilmiyeed laakiin fikirkooda munxarif ka aaminsanaa kabacdina sidaas ayaan ugu biiray fikirkoodana fikir khaldan inuu yahay ilaahay waa tusi ballanqaadyada ay dadku u sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku dhiirigeliyaan jannada inay janno u hayaan oo kale inay ninka la yidhaahdo amiir ay ka dhigaan oo kale inay ka dhigaan ninka la yidhaahdo waxyaabo badan ay u ballanqaadaan qoryo sida inuu waxyaabo badan oo waxyaabahaas ka mid ah dhiirigelinta oo beentaa ayay dadka ay ku khiyaamayaan ka imaashadiidii waxaa ii fududeeyey awalan madaxweynaha Soomaaliya oo markaas ku baaqay in afis uu u fidiyay waxa la wixii ka yimaada fikirkaas munxarifka ummadda Soomaaliyeed inay kamid noqonayaan dabcan waalidiinteedoo kale oo si aad iigu dhiirigeliyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu guuray inaan ka soo baxo kabacdina markaan ku soo biiray gacanta dawladda waxaan galay xero kamid ah xeryaha dhaqan celinta kamid ahaan galay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu igu guuriyay waxbarasho badan ayaan ka helay haddana waxaan aaminsanahay inaan Soomaalida dib ugu laaban doono aniga aqoon leh in badan waa ka faa'iideysay dawladuna iga faa'iideysay waan ugu mahadcelinaa insha Allah ta'ala dawladda qaraxyada dhaca inta ugu badan waxaa ku naf iyo hanti waaya dad aan u shaqaynin dawladda iyo ururo kale oo gaar ah waxa wehel ay u noqdeen shacabka Soomaaliyeed in lagu daadiyo dhiigooda diintii nabadgelyada ku soo gaartay ka hor intaysan ku baahin dhulkii Shaam la isku oran jiray culummada Soomaaliyeed ayaa guud ahaan isku raacsan in dagaalka ururada argagixisada kula jira dalka iyo dadka aanu saliyaaraad ku lahayn diinteena isla markaana daadashada dhiigga shacabka loo daliishado waraaqo iyo canjalo ay duubeen kuwa dhintay ama hadda dhuumaalaysi ku ah hawdka iyo buuraha guud ahaan dalalka ay saameeyeen dagaalada argagixisada waxa ay ku baaqeen culummada inaan la tirin raadka islaamka ee aan dhaqanka u leenahay sidoo kalena dhalinyarada aysan tamartooda ku bixin wax aan dan u ahayn diinteena suuban aragti ahaan dawladdeena waxa ay qabtaa in naloo soo guuriyey dhaqanka argagixisada waxa ay rumaysan tahay kuwa u baxay wadamada Afghanistan iyo Pakistan iyo kuwa kale ee la midka ah inay soo qaadeen ballanta daadinta dhiigeenna iyagoo ka faa'iideysanaya gaabkii dawladnimada ee la galay dhalinyarada Soomaaliyeed
fikirka xagjirka ah ee la soo waariday lagu beeray waxa sabab u ah dhowr shay ka faa'iideysiga burburkii dawladda Soomaaliya iyo shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka jira inay u suurto gasho inay fursad u helaan inay ka duufsadaan wadadiina ka leexiyaan waxa markaa inoo wada taala inaynu la jihaadno aragtida qaldan oo aynu ka soo horjeedsano kolana dagaalno fikir oo aynu fidno oo wala wadaagno dadkeena aragtida sax ah ee islaamka ee aynu taariikhda iyaabka iyo isirka u lahayn maxay doonayaan hadafkay rabaan inay dhiig daadiyaan inay qarax sameeyaan inay dad laayaan hadafkay ka rabaan maxay tahay maxaa uga soo baxay hadday ummadu u halganta jiritaan wax alla wax nimanka uga soo baxaya ma jirto aan ahayn in fawdo iyo amni darro la waxa ay dawladdu rumaysan tahay inaysan waxba isdoorin magacyada argagixisada Daacish iyo shabaabkii ay doonaanba hay isugu yeeraane inkastoo uu madaxweynaha dalka dhowr jeer u diray cafis dhalinyarada la qalday haddana waxaa dhinac socday guduf looga xoreynaya argagixisada dhulka ay maamuli jireen waxay dani biday inay isku dhiibaan fadhiyada iyo fariisimaha ciidanka saraakiisha ciidamada ee uga wakiilka ah howlgallada dawladda waxa ay qabaan inay meesha ka baxda awood u dhigantay iyaga waxa ay ku hareen argagixisada weerarada ku dhufo oo ka dhaqaaq ah gaadmada iyo kamiinka oo iyagaba laftooda la fashiliyo xoraansiga ay helaan saraakiisha ciidamada darteed nimanka narta niman oo si kafoola dad u dirrama oo rasaamul inay dadka qofka soo gaadaan oo ay soo aruuriyaan oo gaari qarax ay soo aruursadaan oo kadib ay qofka ay la soo aadaan magaaladii ama xeerada ciidanka oo jooga maahan fool markay imaato dagaal toos sidoo ma jecla ciidankan danabna aaday uga naxaan markay meeshii ku arkaan maxaa yeelay ayaga dadka ayaga gaado shabaabta sidoo dadka waa gaadan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha jooga oo jabhadaha ah iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bisooladaha ku hubaysa labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga gaado aaday u nicibiyeen ma jecla marka ciidankan danab waxay ku nicibiyeen waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu maanta kale meeshaan iskaga shaaxayhay magaalada iskaga fadhiyeen caawado kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay ninkiina uusan filahayn hujuum xoog leh oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo socdana uusan maqal magaaladii oo xiran nimankiina waana dul taagan yihiin sababta marka waxaa keenay ayadoona anagoona xataa ku socon mararka qaar inay iska kala cararaan waxaa keenaysa magacaas danab ka cararaan taasaas sabab waxa ay dawladnimada hadda haysataa dhalinyaro ka soo baxay kuliyadaha dagaalka dalka iyo dawladaha Soomaaliya taageera sida Turkiga waxa ay wax weyn ka bedeleen rajay xumadii jirtay kadib markii la aqoonsado nooca tababar ay u baahan yihiin ciidamada ayaa waxaa la bilaabay tababaro gaar ah oo lagu soo saarayo ciidamo tayo leh taasi oo sababtay in deegaano badan lagala wareego nabadiidka hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen markaad meeshaan timaadeen waa carareen Soomaha waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay carruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tegayno kaliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taagannahay ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku dhahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno waxay wajahayaan argagixisada tab aysan ku arkin jiidda dagaalka waxaa jira dhaqan ciidan oo waxa ay dadku helayaan gacan caawin ka sokow in laga dulqaadayo heeryada argagixisada